dibadbaxani rabshadaha watay ayaa waxa uu maanta ka dhacay magaalada Cape Town iyadoona dadka dibadbaxa dhigayay ay saameeyeen goobaha ganacsiga Soomaalida ee deegaanka Biaval waxayna dadka dibadbaxa dhigayay ay ka soo horjeedeen saddex siyaasiyiin oo ka tirsan xisbiga talada dalkani Koonfur Afrika haya ee ANC kuwaasi oo maanta mar kale la soo taagay maxkamad ku taala xaafadda Soomaalidu ay ka degan tahay magaalada Cape Town ee Biaval waxaana loo haystaa dambiyo ay ka mid yihiin qashin ay ku daadiyeen garoonka diyaaradaha ee magaalada Cape Town sanadii tagtay ee 2014 dadka dibadbaxa dhigayay oo socod ku soo maray wadada Durban Road ee xaafadda Biaval isla markaana xarunta ganacsiga Soomaalida magaalada Cape Town ayaa isku dayay in ay boob iyo rabshado ka abuuraan inkastoo ganacsatada Soomaaliyeed ay ahaayeen kuwa inta badan ganacsiyadooda albaabada u laabay waxa ayna dadka dibadbaxa dhigayay ee burbur u geysteen qaar ka mid ah gawaarida ay lahaayeen ganacsatada Soomaaliyeed iyagoona mid ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed uu ka badbaaday kumanaan Koonfur Afrikaan ah oo rabshadaha dhigayay isla markaana doonayay inay isaga iyo gaarigiisaba dhulka geliyaan booliska dalka Koonfur Afrika gaar ahaan kuwa magaalada Cape Town ayaa ku soo baxay dibadbaxayaasha iyagoona dadka dibadbaxa dhigayay ku kala eriyay qoryaha damage-ka ka dhaca iyo sunta dadka ka ilmaysiisa Xasan Kaafi Maxamed Shire telefishinka caalamiga Universal magaalada Cape Town.